السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلشدا شرفت مدن اكو خدن جنا كمان مال سو دواده وحلقدي شناد اتحانهني هل خيراليال ولي aan la daahfurin. duhurkii kadib odayga duqa ah ee Andrew Gerard waxa uu ka baxay beertiisa isaga oo qaaday wadiiqada gasha xerada ariga ee ku taala dhabarka beertiisa. waxa uu xerada ariga ka soo xushay 6 neef oo uu seylada u iibgeeyay. casarkii markii ay gaadhay ee gurigiisii aanu ku soo laaban ayay xaaskiisii iyo 2 wiil oo uu dhalay ay baadidoon tageen. hore markii u heli waayeenna waxa ay waceen booliska oo sida wax u dhaceen ay uga warameen. subaxii xigay waxa tuulada Oosti soo gaadhay 3 dambi baadho oo ka socda magaalada Limoges ee dhacda galbeedka Faransiiska si ay booliska gacan uga siiyaan helista duqa la yahay. intii hore cidina uma arkeen odayga in la dilay amaba dib ay la kulantay sababtoo ah Andrew Gerard oo ah nin kale beeraha ugu badan tuulada daadiisu waxa ay dhaaftay 70 jir. sida awgeed waxa ay u arkayeen daalka iyo shaqada badani iyo sanadada tirada badan ee uu soo shaqaynayay awgeed in uu isagu isqurgooyay. balse sidee ay suurtagal u tahay gabadh qalaad oo ku nool magaalada Paris oo tuulada odaygu degan yahay ka fog 320 kilomitir inay booliska u sheegto odayga in la afduubay oo la dilay. gabadhani weligeed hore uma maqal Andrew Gerard inuu jirana kamay warqabin. iyadoo taasi jirto haddana waxa ay tilmaam buuxda ka bixisay goobta uu meydku yaallo iyo xogo dilaaga ku saabsan. shakadu waxa ay soo bilaabantay 4 Abriil 1938 markii dambe baare Paul Marshall iyo labadiisa caawi ay soo gaadheen magaalada Limoges iyaga oo filanayay baaritaanku saacado kooban wax ka badan inaanu ka qaadan doonin. waxa ay guda galeen baaritaanka odayga iyadoo ay la socdeen 2 askari oo deegaanka ah iyo dhowr nin oo beeraley ahi. waxa ay ku horeeyeen dhulkii iyo beerihii uu Andrew Gerard lahaa. kadib waxa ay u gudbeen aydii iyo kaymihii. inta kadib waxa ay tiirar waaweyn ku tuureen gunta barkado aaga ku yaalay iyagoo uga gol lahaa bal inuu barkadaha gudahooda odaygu ku dhacay balse faramarnaan ay la soo hoydeen. galinkii dambe ee maalinkaas Paul Marshall waxa uu ku soo wareegay soonaha tuulada isagoo isku dayayay in uu suuradaysto tallaabooyinkii u dambeeyay ee uu odaygu tuulada kaga baxay. beeraladii ka shaqaynayay beeraha Andrew Gerard mid kamid ah xaaskiisa ayaa sheegtay mar ay seegeeda qado u soo siday in ay aragtay isaga oo keligii ah oo tuulada dusheeda ka wareegaya kadibna kaynta gudaheeda galaya. 3 cisho oo xiriir ah ay baaritaanadaasi socdeen iyadoo aan wax natiijo ah la gaadhin. dhacdadii yareed waxa ay isu bedeshay xilxiraale weyn oo loo maara waayay. hadalhaynta odayga la laayahayna waxa ay gaadhay wargeysyada waaweyn ee caasimadda ka soo baxa. sidaas ayuu warku ku gaadhay Dr. Eugene Favre oo ah maamulaha macahadka dabagalka dhacdooyinka caadada ka baxsan ee ku yaala magaalada Paris. kadib waxa uu la soo xiriiray xarunta booliska ee magaalada Limoges isagoo u soo bandhigay inuu gacan ka siiyo hal u helista xilxiraalahan. taliyihii ayaa ka aqbalay caawimada doctorku uu fidiyay. waxa uu weydiiyay xilli ma ayadna soo gaadhaysaa doctorkii waxa uu ugu warceliyay idinma imanayo ee aniga oo halkan jooga ayaan idinla shaqaynaya. kaliya waxa aad soo dhiibtaan agab uu marxuumku ka tagay. taliyihii wuu la yaabay dalabka doctorka balse uu ka aqbalay. waxa uu dalabka doctorka la wadaagay Paul Marshall oo hayay maro luqunta lagu duubto oo uu odaygu lahaa. kadib maradii ee doctorkii loo diray. maalinkii xigay Dr. Favre ayaa maradii qaaday oo geeyay hoyga ay deganeed Marwe Edith Morel oo ahayd gabar ku caan baxday dhacdooyinka ka baxsan caadada. doctorkii sanduuq uu sitay ayuu maradii ka soo saaray oo inta uu gabadhii u dhibay ku yidhi ma ii sheegi kartaa xog ku saabsan maradan iyo ninkii lahaa midna. waxa uuna ku dadaalay in aanu u sheegin gabadha wax xog ah haba yaraatay oo ku saabsan odayga. horteeda ayay maradii soo dhigtay Marwe Edith Morel iyadoo eegaysa in ka badan daqiiqad barkeed. kadib waxa ay tidhi waxa uu xidhan yahay dhar adag. waa suud laga toray marada loo yaqaano koridori. qasab ayaa lagu afduubtay. waxa aan u jeedaa isaga oo lugaynaya beer cidhif ku taala. kaynta ayuu galay. waxa lagu qasbayaa wadiiqo ciriiri ah in uu maro. keligii maaha nin ayaa la socda. waxa uu sitaa ninkaa la socdaa koofiyad madow iyo koodh madow. doctorkii ayaa gabadha weydiiyey odaygu miyuu nool yahay mise wuu dhintay. waxa ay ugu warcelisay wuu dhintay. waxa uu mar kale weydiiyey halkee ayuu imika ku sugan yahay. waxa ay ugu warcelisay goob u dhow magaalada Limoges. iyadoo oo Marwe Morel aanay hore u booqan deegaankaas haddana waxa ay tilmaam buuxda oo sugan ay ka bixisay goobtii uu yaalay meydka odaygu. mar kale ayuu doctorkii weydiiyey maxaad xog ka haysaa ninka afduubtay ee taandhada geeyay. may awoodin Marwe Morel ninkaas inay xogta fatiran ka bixiso balse waxa ay sheegtay wajigiisu inuu casuus leeyahay iyo labadiisa gacmood midkood inay fari ka maqan tahay. kulankaasi markii uu soo idlaaday ayuu Dr. Favre warbixin buuxda oo ku saabsan xogtii ay Marwe Morel la wadaagtay u diray xarunta booliska ee magaalada Limoges. warbixinta waxa la socday khariirad uu isagu sawiray oo ku aastaysan goobta uu meydku yaallo. maabka oo uu sawirkeeda uga shidaal qaatay tilmaantii ay gabadhu siisay.
10kii Oktoobar ayuu baadhe Paul Marshall bilaabay baadhitaan ballaadhan oo lagu eekeeyey kaymihii jiqda ahaa ee ku teedsanaa soonaha beeraha Andrew Gerard. waxa uu raacay khariiradii uu soo diray digtoorku. isla goobtii ay soo tilmaantay Marwa Morrell ayuu ka helay meydkii Andrew Gerard. dhabarka waxaa kaga taalay odayga rasaas u muuqatay in meel dhow lagaga soo riday. maalinkii ay bisha Oktoobar ahayd 15 waxa magaalada St Salves lagu qabtay nin makaanik ah oo lagu magacaabo Mark Barbier iyada oo loo haystay tuugnimo. waxa uu ahaa nin wejigiisu casuus leeyahay, gacmihiisa mid ka mid ahna ay fari ka maqan tahay. boorso gabooday oo uu sitay waxa laga helay qori. markii baadhitaan lagu sameeyeyna Mark Barbier waxa uu qirtay in odayga afduubay oo uu dilay. waxa uu sheegay inuu beerta duleedkeeda hurday markii uu soo agmaray odaygu. kadib odayga ayuu xoog u sheegtay oo u kaxeeyay dhanka kaynta si uu uga qaado xogaaga lacagta ahayd ee uu sitay. markii uu isku dayay odaygu inuu baxsadana rasaas ayuu dhabarka kaga dhuftay. baadhitaankii markii uu dhammaaday ayuu dilaagii yidhi isagoo aad u yaaban, maan filaynin cidina dilkan inay igu caddayn karto. fadlan ugu yaraan ila wadaaga qaabka aad ku ogaateen odayga inaanigu dilay. sidee ayaad igu garateen? fadlan ii sheega. Mark Barbier waxaa dil toogasho ah lagu filiyey January 1939. booliskuna umay sheegin qisada yaabka leh ay ku ogaadeen inuu dilaaga yahay, sababtoo ah iyaga laftarkooda ayaanay kaba dhaadhicin qaabka ninkan lagu ogaaday. halkaas ayaynu ku soo afmeerinaa xalqadeennan maanta. muuqaalkan muuqaalka xiga inta aynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa nabaday.